taliyii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa ku jeesjeesay Mahad Salaad ninka sheegtay wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya oo fashil iyo fadeexad dhex jooga waa sida xaaladda guud ee amniga Muqdisho muxuuse ka yiray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir warbixinadaasi oo kooban ayaan rabaa in halkan idin kula wadaago soo dhow muuqaalka si gudbi la garay sheergare sidoo kale ku soo bir bogina ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hore u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA waxa uu xilli ka hadlayay magaalada caasimadda Muqdisho waxa uu sheegay in qorshaha lagu sugay amniga dalka ay iyaga soo bilaabeen isla markaana meel fiican ay gaarsiiyeen balse xilligaasi ay wajahayeen eedo dhaliilo iyo sidoo kale isoo istaag ay ku sameeyeen qaar ka mid ah xubnihii mucaaradka ahaa waxa uu sheegay in wadooyinka iyo goobaha muhiimka ah ay ku xireen kaamirooyin lagula soconayo amniga dalka laakiin dadkii xilligaasi dhaliilay waqtigan ay ogaadeen in amniga magaalada caasimadda waxa ay soo bilaabeen ay ku sugeen waxa uu yiri xilligii aan shaqada haynay oo aan talada joognay waxa jirtay in amniga dalka aan sugnay oo kaamirooyin aan ku xirnay guud ahaan dalka laakiin xilligaasi wax muhiim ah looma arkin balse waqtigan ayay ogaadeen kuwa jooga hay'adda nabad sugidda oo ula jeeday Mahad Maxamed Salaad haddaba amniga aad ayuu sheegay inuu wanaagsan yahay wuxuuna ku dhaleeceeyay dhinaca siyaasiyiinta in ay ka been sheegaan waxa ka jira dalka haddaba marka intaas laga tago ninka sheegtay inuu yahay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf iskuna arka shakhsiga ugu awoodda badan dowladda federaalka ee Soomaaliya kuna tuntay xuquuqdii shaqaalaha wasaaradda warfaafinta heebso aan ka bilaabay gudaha wasaaraddaasi ayaa durbadiiba bilaabay in uu difaac ka galo eedeemo aan loo jeedin maadaama uu fadhiyo wasaaradda warfaafinta ninkan waxa uu sheegay in Fahad Yaasiin uu awood u lahayn in uu ka hadlo arrimaha dalka gaar ahaan dhinaca amniga isaga oo ku faanay in waqtigan uu fadhiyo dhinaca dowladda Soomaaliya haddii uu rabana uu dalka ka saari karo haddaba su'aasha jawaabtu u baahan waxay tahay ninka sheegtay wasiirka xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf ninka qaatay al-cadaala miyaa Fahad Yaasiin uga awood badan gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya mase ka saari karaa gudaha dalka qaybta hoose aragtida noogu reeb muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro ninkan oo xilligan la sheegayo in culeys badan uu ku hayo shaqaalaha wasaaradda laba dhinac uu kala saaray qaarkood uu xigsaday isla markaana xilligii farmaajo ay wada ogyihiin shacabka Soomaaliyeed wixii uu dhigay ee gabood fala ah ayaa hadda bilaabay mar kale in uu ka hor yimaado aragtida dadka siyaasiyiinta ah ee xaq u leh in ay hadlaan waxa uu bilaabay in uu weerar af ah iyo mid hoose uu ku qaado cid walba oo rabta inay ka hadasho dhinaca amniga dhinaca siyaasadda caafimaadka iyo waxbarashada isaga oo isku arkay inuu yahay shakhsiga ugu awoodda badan haddaba waxaan bilaabi doonaa sidoo kale in aan si kooban idinkugu soo gudbino ninkan halka uu ka soo galay siyaasadda waxbarashadiisii iyo sidoo kale dhinaca iyo dowladda qaab uu hadda ula joogo iyo tuhunno dhinaca amniga ah oo ninkan iyo sidoo kale raadad soo galay oo aan idin soo gudbin doono marka intaas laga tago eedeenta Fahad Yaasiin iyo sidoo kale ninkan sheegta al-cadaala inuu yahay wasiirka xigeenka warfaafinta eedeenta durbo uu ka naqdiyay Fahad Yaasiin iskuna arkay inuu yahay nin u awood badan waa sidee amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho waa mid hagaagsan waxaana xilli kasta u taagan sugidiisa ciidamada qaranka gaar ahaan kuwa hay'adda nabad sugidda kuwa booliiska iyo militariga waxaan uga mahadceliyay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo har iyo habeen nabad ku nool isla markaana sheegay in dhiigoodii iyo naftoodii ay u horeen ciidanka qaranka haddaba shacabka Soomaaliyeed waxaa lagu dardaarmay inay amnigooda si adkeystaan oo ay la shaqeeyaan ciidamada kala duwan ee dowladda isla markaana ay ka hortagaan cid walba oo isku dayda in ay qalqal geliso amniga dalka isla markaana gacan bir ah ay isaga qabtaan 4 sano muddo ku dhow waxay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka gaar ahaan kuwa caasimadda oo saaxiib la ahaa qarax dil iyo sidoo kale
dhibaatooyin kale ayaa kasoo kabtay waxayna garteen in hay-adahooda amniga ay la shaqeeyaan fartana ay ku fiiqaan cid walba oo isku dayda in amnigooda ay dhibaato u geysato ama qarax ay fuliso ama dil ay ka geysato gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. haddaba boggeena haddii aad nagala socoto YouTube soo subscribe inoo saar, haddii aad nagala socoto dhanka iyo page-kana soo follow gareey boggeena. soo kale muuqaaladu waa inoo muhiim in aad sii gudbisaan. waxaan bilaabi doonaa dhinaca YouTube-ka wareysiyo iyo sidoo kale sheekooyin idin xiiso geliya.